marka insha Allah waan soo qaadan doonaa qaabkii aan gabadhayda markii aan ogaadayna aan uga taxadiray weil yacni das warum eigentlich waxay gabdhahaas hadda sababtay u sameeyeen ama ay ugu sameeyeen I don't know yacni iyagii baanba aqoon markii dambe way heshiiyeen way saaxiibeen gabdhihii dhib ma laha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأبشر حسن Stiftung أما أبشر حسن Foundation أنا قومنا محمد عبدية أمان ولا لها ميلان جوجنا وإلى هانونا بديالو. What is bullying أما حق شيغشو أما بيقسي جرمك waxay dhahaan tyrannizieren and where does it started xagaysa ka bilaabataa waa maxay xoog sheegasho waa maxay biiqsi xagaysa ka bilaabataa xoog sheegashada ama biiqsiga ama bullying ama mobbing ficilo badan ayuu wataa oo ay adag tahay in definition ama definition loo helo guud ahaan waxaa lagu macnayn karaa bullying ama mobbing ama xoog sheegasho ama biiqsasho marka si joogto ah ama ku celcelis ah qof loo dhibaateeyo ama dhibaato loogu geysto shikaaniiranay dhahaan jarmarku qaab oo qofkaas verbal yacni hadal ah qaab hadal ahaan ah waa qofkaas sushisha attaakiiran yaa qofka psychologically ahaan ayaa maaragtay maxaa la dhahaa psychology ama psychologish ama maxaa la dhahaa ama seelish yaa mental ayaa ruuxadda ama dareenka qofkaas lagu dhaawacayaa waxayna badanaa ka dhacdaa iskuulada ama meelaha shaqada arbeitsplatsiga iyo meelo walba oo bulshada yaa interagiran to interact yaa meelaha wada dhaqanka bulshadu ay ka bilaabato sida guryahoo kale xataa guryahay ka imaan kartaa oo badanaa annaga dhaqan ahaan Soomaali ahaan siiba dumarka u badan meesha gabdhaha badan ay ku nool yihiin way ka dhacdaa qofka guriga markaa mas'uulka ka ah ee dumarka ana qayb weyn buu ka qaataa oo ah qofkii mas'uulka lahaa qayb weyn buu ka qaataa in gurigaasi ay ka dhacdo yacni in qof ama laba gabdhood ama gabar gooni loo riixo marka meel walba oo bulshadu ay ama dumarka dhexdooda ay ka dhex dhacdaa oo meelo walba oo dumar ay isugu yimaadaan ama dadba ay isugu yimaadaan ragga dhexdooda laftirkeeda waxaynu ognahay wadamada aan ku noolnahay caruuro badanoo wax dilay baa jira ama iyagii xataa isdilay markii dambe iskuulada bayna u badan yihiin meelaha oo badanaa ay soo baxaan laakiin dadka waaweyn oo kale shaqadoo kale iyo qofku waxaa dhici karta inuu ma aragtay hadhow psychology ahaan ay dhibaato intay usoo gaadho uu shaqayn waayo ama meeshii ka tago ama dhibaatooyin kale ku dhacaan depression ku dhaco waxyaalo badan ku dhacaan laakiin familada dhexdooday ka dhacdaa caruurtaada dhexdeeday ka dhacaysaa waalidka caruurtiisa ku samayn kara qof walbo awood leh baa samayn kara maxaa la yiraahdaa xoog sheegashaba weeyaba marka mobbingka waxaa lagu tilmaami karaa guud ahaan feinselig inuu yahay yacni feinselig yacni feind waa cadowtinimo waa yaa aggressive yaa feinselig inaa qof cadow lagu noqdo oo aggressive lagu noqdo has a fult yacni nacayb in qofka nacayb buuxa loo muujiyo asoziale Verhalten gegenüber einer anderen Person aus yacni qof kale in qaab reer baadiyenimo ah qaab dhaqan xumo ah lagula dhaqmo senteniskana waa muhiim oo wuxuuna leeyahay wahrscheinlich haben wir alle im Laufe unseres Lebens schon einmal jemand gemobbt waxay u badan tahay in aan nolosheena intaan nooleyn qof aan mobbing kusoo sameyno qof aan
bullying kusoo sameynay ama aan xoog kusoo sheegnay ama aan beeqsi kusoo sameynay ama annagaba nala kusoo sameeyey, laakiin qof walba oo inaga mid ah qofkii asaga lagu soo sameeyana asagana wuu sameeyaa. mar un inaad samaysay ama caruurtaada ku samayn lahaydaa ama qof kaloo aad mas-uul ka tahay ku samayn lahaydaa ama dad intaad qof u kaashatid ku samayn lahaydaa. yacni qof walba oo inaga mid ah waxay u badan tahay inuu uu bullying sameeyey ama maxaa la dhahaa biiqsasho uu sameeyey. Vor allem die Schule ist eine ganz besondere fruchtbare Boden. maxaa la dhahaa dhoobada ama ciidda ugu fiican ee uu ka abuurmo oo ka dhashana waaba iskuuladaba baa laleeyahay. yani iskuullada ugu badan waana run. iskuulladii Soomaaliya qofkii soo dhigta laftirkeeda wuu ogyahay inay ka dhici jirta biiqsashada iyo in qof maaragtay maxaa la dhahaa mobbing lagu sameeyo. way ka dhici jirta iskuullada Soomaaliga ah. iskuulladana waa la mid oo waxaynu aragnaa caruur intay bistoolada iyo soo qaadato marmarka qaarkood. Maraykanka aad bay uga dhacdaa, Jarmalkan xataa waa ka dhacdaa, meel walbay ka dhacdaa oo dhibaato qof marka hore qofku fulkaan buu marka dambe noqonaya inuu qarxo oo wax baabi'iyo oo wax dilo yaa si uu caradiisa u cunayo amaba maxaa la dhahaa inuu asagu wax is yeelo naftiisa uu wax yeelo. marka wax la isxasuusinayo oo hadda anagoo waaweyn oo waqtigii iskuulka soo dhaafnay aan rabno inaan isxasuusino dadka qaarkood oo nagu galaaska ahaa ama nagu iskuulka ahaa. waxaa dhici karta inaad qof kale ku xasuusatid oo aad tiraahdid ma xasuusataa kii ama tii loserka ahayd, ma xasuusataa munadii loserka ahayd, ma xasuusataa oo aan waxba aqoonin damiinada ahayd iskuulkana la dhigan jirtay, ama tii ishtreebarka ahayd tii oo balaayada iska dhigi jirto oo maaragtay inay wax taqaan iska dhigi jirto mar walba farta taagi jirto. maxaa la dhahaa waxaa jira ciyaal ishtreebar waxaa la dhahaa dadka waxbarashada ku fiican, caruurta waxbarashada ku fiican. marka gabdho badan ama wiilal badan iskuullada waxbarashada ku fiicnayaa jira, ayaga laftirkooda marka waa lagu sameyn jiray bullying. badanaa waxaa qofka lagu colaadiyaa waa qofka uu yahay, qofka uu u eg yahay ama qaabka uu eg yahay, qofkaasi qaabka uu og yahay, aqoontiisa iyo waxqabadkiisa intaba qofka waa lagu caloodiyaa. blueska shtelt qofka taasaa waxaa looga dhigaa yacni maxaa la dhahaa dacaayad looga soo qaadaa. gabdhaha waxaa suuqa loo gashaa markay rabaan wiilashu in gabdhaha waynu aragnay social mediada aad bay uga dhacdaa in gabar fideoyaasheeda lasoo geliyo, in gabar maxaa la dhahaa wax laga sheego. in gabdhaha Soomaaliyana markii la joogay gabdhaha badanaa suuqa waxaa loo geli jiray macal halkan kan yacni articlekan ama bugaagtan aan kasoo qoray cadaana qoray waa dad wadamadan u dhashay. yacni gabdhahooda laftirkooda lagu sameeya in gabadha suuqa loo geliyo la yiraahdo gabadhaas yacni nin walba maaragtay gacanta qabsada waa naag saasa waa naag saa u dhaqan xun in la yiraahdo oo gabadha markaa dhaqankeedii maaragtay iyadii sumcadda halkaa looga dilo. qaar kale gabdhaha waxaa lagu sameeyaa ama wiilashaba qof bay ku xiran tahay. Das kleine bummelige Mädchen, das immer traurig in der Ecke saß, weil sie ständig vor ihrer Gewicht gehänselt wurde. ma xasuusataa tii yaro buurneedoo mar walbaba geeska fariisan jirtayoo mar walbaba iska madluunka ahaydoo oo maxaa la dhahaa maadaama hilibkeeda iyo yacni inay maadaama ay tahay qof oo xoogaa hilib lahayd hilibkeeda lagu cayn jiray yacni oo lagu maaragtay aflagaadeyn jiray. sidaa darteedna dee ay gees isugu faquuqi jirto. ma xasuusataa tii ma xasuusataa munadii ma xasuusataa saas ayadoo kale yacni in la isku soo xasuusiyo oo dad yaqaana ay saasoo kale aniga yiraahdaan waa wax macquula. yacni anaa matala isugu soo qaata hadda. Und weißt du noch, mas xasuusataa wie du mal deine beste Freundin von heute auf morgen ausgegrenzt hast. ma xasuusataa sidii aad gabadhii aan saaxiibka la ahayd aad istaqaaniin oo asxaabtaada ahayd oo dadku isugu jeclaan sidii aad hal maalin aad ma aragtay aad uga xiratay albaabada uga xiratay. ausgegrenzt waa markaad qofka albaabka kasoo xiratid oo aad yacni garansigii yacni maxaa la xuduud u xirtid aad tiraahdo qofa intaa saaxiib ahaydeen ama maalinta dambe tiraahdo albaabkay kama soo geli kartid. gabaraan dhalay aniga ku dhacday gabdha ay saaxiibo ahayeen oo caddaan ahaa ay intay wada faqeen ay isku dayeen
caruurtiin inaad ka warqabtaanaa fiican gabdhaha walaalaha ah intaa idinka isku mashquulaysaan yaa wadamo waxaynu joognaa aynu ku nahay wadamo yani ayn minority ku nahay baynu joognaa marka waxaa loo baahan yahay inaad caruurtaada ka warqabtid hadday iskuulo ay la dhiganayaan caruuro kale oo ka wada midab duwan way ku dhacdaa boqolaal caruuraa naqaanaa ay ku dhacdo maalin walba lagu sameeyo yaa kama warqabtaan caruurta qofka waxyaalo loo kaashanayaa jira marka insha allah waan soo qaadan doonaa qaabkii aan gabadhayda markii aan ogaadayna aan uga taxadiray vile yacni das warum eigentlich waxay gabdhahaas hadda sababtay u sameeyeen ama ay ugu sameeyeen I don't know yani iyagii baanba aqoon markii dambe way heshiiyeen way saaxiibeen gabdhihii dhib laakiin way dhacdaa yaa waa wax dhaca aladaas is mobbing waxaasoo dhan waa bullying yaa waa maxaa la dhahaa waa biiqsi xagga shaqada marka la fiiriyo am Arbeitsplatz qaabkeeda badanaa wuxuu noqdaa competence entzug yaa competence withdrawal in qofkii awoodii laga qaado aqoonta yaa wixii uu khibradda u lahaa in loo diido inuu ka shaqeeyo wasiiradoo kale ku dhacdaa maqli jiray in wasiirkii magacoyaal buul uu noqdo meel la fariisiyo shaqadiisii dad kale loo dhiibo asaga halkaa uu fadhiyo oo dad kale ka amar qaata laakiin wasiirku uu ku magacaaban yahay fiiriya qofka sida loo bahdilay demuutigu bay dhahan jira marku in qofka demuutigu lagu sameeyo shaqadii uu lahaa oo maaragtay baa laga qaadayaa shaqo kaloo sinloos ah aan macno samaynayn ayaa leeyaha qabo laakiin wuu ku magacaaban yahay shaqadii dad kale ka hoos shaqeynaya dadka kolleeganka la ah yacni maxaa la dhahaa la shaqeynaya ama uu asagu madaxda u yahay ama baa lagu hor ceebeynayaa oo hortiisa maaragta maxaa la dhahaa hortooda wixii la rabo looga sheegaya meediyadana waa la mid qaabka loo isticmaalo yacni dadka meediyada in qof wax laga sheego oo maaragtay group ay u isticmaalaan inay qof sumcadiisa haleeyaan maadaama ay ka awood badan yihiin ilaa waa group ayagu dad badan baa ku xiran viewers badan bay leeyihiin in ay wax ka sheegaan si qofkii asagu waa keligiis dadka uu gaarsiin karaa way yar tahay codkiisa marka waa awood waa xoog sheegasho waa biiqsasho qof xoog leh unbaa mobbing ama bullying samayn kara qof kale ma samayn karo qofku mar walba waa inuu awood u lahaadaa intaasaan kusoo ekeynaya insha allah la socdo walaalayaal si aynu uga wada faa'iidaysano oo aynu uga hortagno oo aynu caruurteena iyo generationka soo socda aynu u badbaadino aynuna ummadahan kale taqaatiir bay leeyihiin dad waxay leeyihiin maxaa la dhahaa social workers ay leeyihiin dad arrimahan ka hortagay leeyihiin annagii baaba isku mashquulsan marka insha allah videoga dheeraanaya qodobada kale waan kusoo xijin doonaa iyo qaabka loo baahan yahay inaynu isku badbaadino oo aad uga bixi kartid haddaad ogaatay cunugaaga in lagu sameeyo ama adiga lagugu sameeyo amaba maxaa la dhahaa in aad aragtid qof lagu sameynayo qaabka aad wax uga qaban kartid waa idinla soo wadaagaya insha allah qofkii u baahana maanta cilmigu wuxuu yaalaa maxaa la dhahaa internetku ku jira qofkii u baahan luuqad alwalaa luuqadu yaqaano buu ku google gareyn karaa wuu akhrin karaa si uu naftiisa iyo nafta caruurtiisa iyo nafta dadka uu maxaa la dhahaa mas-uulka ka yahay ama qofkii kaloo bini aadana uu arkay in lagu xadgudbaayo uu uga hadlo oo uu maaragtay u difaaco insha allah khayr baan rajeynayaa waa mahadsantihiin dhammaan walaalayaal waa idinkaga mahad celinaynaa haddaad sii sheer garaysaan programkan subscribe-ka noo saartaan iyo thumbs up-ka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu